نوح بلا ما أنت ديارة صوّد الرعني أديس أبوك يمد نوح وما مركي كوجور رئيس ديارة الرعدة ها نعم هي محدري ميسي waxaan dareemay raaxo fiican waaba hadda lacag aan haysto oo ku noqon lahaa dayuuradii la dhisoobe هي dhulka markaan eegay waxaan kala garan waayay laakiin guriyihiiyo arigii baan kala garan waayay هي waxaan cad ma ariba ma guriyaa waa maxay baan sirmo هي weligay diyaaradnaan raac هي halgeelayga baan isku eeganayay Soomaaliland ma joogo aniga gobolka Awdal la yiraahdo baan joogo هي weligay dayuurad way tii koobaad laakiin maanta waxaan dareemay raaxo fiican si wanaagsan yaani ma aragtay waan jacaylay ba kursiga fadhiyay si yaani ma aragtay aan ku raaxaysto kursiga فكر نوعات كايستي مركي هوري maxay فكر نوعات مركي هوري كايستي الله waxaan la ilaahay gooro kolka dayuurada fuulay waxaan islaa bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay oo dhulka mooy cirka nagu dil ya dhulka baan ya ma aragtay ya هي si fiican markaa waxa weeyaan ilaahay alxamdulillah rabbil caalamiin waa joognaa hadda jijiga Soomaa miyaad wareertay may waa raaxaystay baan kula hee haye hadda lacag hadaan soo ku noqon lahaa maan kula gabiba Abdurrahman haye hadda lacag hadaan heli karayo aan ku noqon lahaa baan ku yaana raaxada aan dareemay awgeed inta hawada ku jirtay dhulku baad eegaysay dhulkan eegayo daawanaya hadba halkay soo marayso baash haye markaasaan marmarna kursigayga siga noqonayo marna saban soo lahaay waxaan daawanayay ma aragtay waxaan ku weydiiyay ushan aad wadato waad la safrtay usha waan la safray dee waan xanuunsanayo aan ku tukubayaadeer markaan meelaha baabuurka u dhawaa waxaan ku weydiiyay xageed ka imid ka timaad markaaga hore aniga Soomaa awdal gobolka awdal Soomaaliland Soomaaliland ka xagee xaradii militariga waagi hore ahaan jirtay oo xagee ah ma baki baan ka imid waka hadda markaad reeri ku noqoto ma sheekay safarka diyaaradda si fiican ay maxaad oran kaalayaan leh maanta dayuuradda soo raacay haye ciyaalkii iyo xaaskii inta jaarka baan u yeedhay haye waxa la baashu kolka la fuulay waa ashhaati haye laakiin markaan soo raacay raaxo iyo qurux baan dareemay hadda nin kastoo baawur dambe raacina dayuuradda raac baan leh ma gabiba haye maalinta hore jijigan baawur ka raac abuurna baawur ka soo fuul haye waxaan ku tagay arday Soomaa anoo rafaaday oo lagu reeyso laami kari weyn baan tagay habeeniyo laba maalmood iyo habeen oo inala sii socotay hadda hal saac baan ku nimanay jijiga waa dayuuradda nafaqa lagu hayay raax wariyaa ma gabiba waa ka war laaba baash haye baawur dambe fuuli mayso ma fuulayo ilaahay noolkiisa ku waan soo diyaarsanaya shaqada dambe hadii Allah reemiyigi adreskeeda ma doo sheekay waan uga sheekaynaya qosol beeca way dareemi doonaan inay dayuurad raacaan iyagu bay riyeen doonaan hadduu Allah idmo tanna waa ku taariikh adiga waa taariikh maalintii koow waa maalintii koow waxaan la kulmay waliba Cabdiraxmaan Catoosh ninkan BBC ka dhageysanayay ma sha Allah alxamdulillah rabbil caalamiin kolka halkan waa Cabdiraxmaan Catoosh oo idin nabadgeliyo kolka Allah hayd sana ku dhageysanayay ma bakiya joogtay markaa raadiyo baan haystaa waad maasanta maanta waa Cabdiraxmaan Catoosh sida ay nabadgeliyo kolka leedahay war mu nagu gaadinaya walla waa Fariid ninkaas waa Fariid